waxaa magaalada Toronto si rasmi ah uga furmay tartanka ciyaaraha Somali Week ee 2026 oo uu soo qaban qaabiyo ururka Today. Tartankan oo sanad walba la qabto ayaa isu keena dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Mareykanka, Canada iyo Yurub. Sidoo kale waxaa isku arkaa ciyaartoydii hore ee barisamadkii Soomaaliya iyo qaybaha kale ee bulshada kuwaas oo ku kala irdhoobay qurbaha. Ujeedka tartanka ayaa lagu sheegay xoojinta isdhexgalka bulshada, dhiirigelinta isboortiga iyo ka hortagga in dhalinyaradu ku mashquulaan waxyaabaha aan wanaagsanayn. Tartanka waxaa sanadkan ka qayb galaya 12 koox oo ka kala yimid dalalka Mareykanka, Canada iyo Yurub. Labadii kulan ee ugu horeeyay ee la ciyaaray maalintii furitaanka waxaa guulo ku bilowday kooxda Khalid bin Walid ee ka socota magaalada Toronto iyo kooxda Cardiff oo ka socota England. Xafladda furitaanka waxaa ka qayb galay marti isugu jirtay diblomaasiyiin, hogaamiyaal bulsho iyo xubno ka tirsan jaaliyadaha Soomaalida ee Canada, Mareykanka iyo dalal ka tirsan Yurub. waxaa ka mid ahaa martida safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania, Ilyas Ali Xasan, oo bogaadiyay doorka ay ciyaaruhu ka qaataan mideynta bulshada iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. wallahi aniga waan daawan jiray inta badan barnaamijyadooda waa la socday in muddo ah marka aragtidii aan ka haystay aragti fiican ay marka horeba ahayd haddana dee goobjoog aan u ahay iyada oo aniga aan qayb ka ahay oo dhex joogo marka waa barnaamij aad u fiican oo runtii aan aad u dhiirigelinayo waaye inuu sii socdo insha Allah. Sidoo kale qaar ka mid ah madaxda ururka Today oo aan wareysanay ayaa sheegay in tartankani uu noqdo madal midaysa Soomaalida isla markaana dhiirigelisa caafimaadka, isdhexgalka iyo wadajirka bulshada. ما شاء الله ما بلغ هذا الكرم وعواي وحبنا iska bedelay ciyaarahan waa waxyaabaha ugu fiican wax lagu xalliyo wax lagu arko is aragga wanaaga iyo bulshada oo is aragta dad badan oo muddo hore isugu dambeysay oo reer Toronto ama North America ama Europe ama Africa ayaa inta isku arkay macnaha wax la heli karo ma. Furitaanka tartanka waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay barnaamijyo madadaalo ah iyadoo ay heeso ka qaadeen fanaaniinta kala ah Raaxo Shariif oo ka timid dalka Kenya iyo Maxamed Xaaji oo ka mid ah fanaaniinta reer Toronto kuwaas oo madasha ku soo kordhiyay jawi farxad iyo dabaaldeg. Tartanka Somali Week Toronto ee 2026 ayaa la filayaa inuu socdo ilaa 2 bisha August markaas oo la soo gabagabeyn doono laguna caleema saari doono kooxda ku guuleysata koobka. Xuseen Nur Xaaji, Toronto.